waxaan weydiistay inay isu kay makanido laakiin way iga diiday. waxaan ugu hanjabay inaan cunugeeda webiga ku ridaayo haddii aysan isu kay makanin. assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ah, kusoo dhawaada qisadan cajiibka ah. mubaarak khayraad falow dhaha muuqaalkan sii sheer gareeya si uu u gaaro muslimiin badan. loofta iyo commentigana nagu dhiirigeliya. mahadsanidin. waxaa jiray nin reer Ciraaq ah oo ka shaqeeya hilibka. maalin walba wuxuu soo qaban jiray neef wuuna gowrici jiray. xaaladaas ayuu daa'imay. maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu waddada ku arkay naag ay ka taagan tahay midi. gaarigiisa ayuu ka soo degay si uu u saacideeyo, midida ayuuna ka siibay. dadka ayaa arkeen waxayna ku tuhmeen inuu asagu dilay. waxaa imaadeen ciidankii ammaanka si ay u xaqiijiyaan, laakiin wuxuu gudagalay inuu ku dhaarto Ilaahay inuusan asagu dilin, laakiin ma aysan rumaysan. way qabteen waxayna geliyeen xabsi. waxay gudagaleen inay baaraan muddo 2 bilood ah. kadibna waxaa lagu xukumay toog. markuu dhawaaday xilligii toogta ayuu wuxuu yidhi, waxaan doonayaa inaad iga dhagaysataan hadalkan. waxaan ka shaqay jiray inaan dadka webiga tilaabsiiyo intaan hiliblaha noqon ka hor. waxaan ka qaadi jiray dadka daraf waxaana u gudbi jiray darafta kale oo webiga. maalin maalmaha ka mid ah markaan soo aaday shaqadii, waxaa soo kortay doontii naag aad u qurux badan oo ay soo jiidatay. waxaan soo aaday gurigeeda si aan ugu sheegto, laakiin way iga diiday. sanad kadib doontii waxaa soo kortay naagtii lafteedii oo wadata wiil yar. waxaan weydiistay inay isu kay dhiibto, laakiin waa iga diiday. marar badan ayaan ku celceliyey inay isu kay makanido, laakiin waa iga diiday. waxaan ugu hanjabay inaan cunugeeda yar ku rido webiga haddii aysan isu kay makanin. waxaana ugu dhaartay haddii aysan isu kay makanin inaan ku ridi doono webiga. cunugii yaraa ayaan biyihii madaxa u geliyey, wuxuuna gudagalay inuu aad u qayliyo. maadaama aan aad u caraysnaa, cunugii ayaan biyaha madaxa u geliyey in badan ilaa uu hadalkiisii go'ay. webigii ayaan ku riday, kadibna hooyadiis ayaan dilay. markaas kadibna waxaan u soo wareegsaday inaan hilib ka shaqaysto. dilkan iyo dhibaatadaana waxaan ku mutaystay dhibaatadii aan u geystay maamadaas iyo cunugeeda. laakiin hadda aniga ma aanan dilin islaantan ee raadiya oo soo qabta qofkii dilay. maalinkaas ayaa la ogaaday qof kasta oo qaatila in la dili doono waqti kadib ha ahaatee. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين.